Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta gaaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo, waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka gobolka. Inkastoo muddo 4 sano ah diyaarad toos uga soo duushay Kismaayo aysan ku degin magaalada Garbaharey, khilaaf kala aragti duwanaansho u dhexeeya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe iyo maamulka gobolka Gedo darteed, haddana Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ayaa nasiib u yeeshay maanta inuu noqdo Ra'iisul Wasaarihii booqda xarunta gobolka Gedo kadib Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Socdaalka Ra'iisul Wasaaruhu oo ku yimid Garbaharey ayaa la xiriira arrimaha hirgelinta doorashooyinka, dib u heshiisiinta, nabadgelyada iyo horumarinta deegaanka. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee degmada Garbaharey, kaas oo qayb ka ah mashaariicda horumarineed ee xukuumadda ka hirgelinayso gobolka Gedo. Sidoo kale, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho ugu howlgalayay baahiyaha ciidanka ku tagay xeryaha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Garbaharey ayaa ku bogaadiyay difaaca dalka iyo howlgallada ay ku beegsanayaan kooxaha argagixisada. Safarka Ra'iisul Wasaare Rooble ee Garbaharey ayaa yimid kadib markii uu soo gabagabeeyay safarkii shaqo ee uu ku joogay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland, ayaa sheegay inuu kormeerayo dhammaan magaalooyinka ay ku qabsoomayaan doorashada mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Safarkayga waxa uu ku saabsan yahay doorashooyinka iyo habraacooda. Jubbaland waa deegaankii ugu horreeyay aan ka bilaabo safarkayga, waxaana mari doonaa dhammaan magaalooyinka kale ee ka dhacayso doorashada sida Baydhabo, Marka, Jowhar iyo Beledweyne, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Garowe iyo Boosaaso, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Afhayeenka Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Macalimo oo ku welinaya safarka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu yiri sida tan: Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdigiisii waxay soo gaareen magaalada Garbaharey oo si diiran loogu soo dhaweeyay. Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdiga la socdayba waxa ay soo dhaweyn diiran ay kala kulmeen shacabka gobolka Gedo, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Garbaharey oo runtii iyagoo caleemo ruuxaya ee Ra'iisul Wasaaraha soo dhaweeyay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu socdaalkiisa uu qayb ka yahay socdaallo uu ku marayo goobaha ama gobollada ay doorashooyinku ka dhacayaan oo gobolkan Gedo ama magaaladan Garbaharey ay ka mid tahay. Intii uu joogay Ra'iisul Wasaaraha waxa uu dhagax dhigay garoonka ciyaaraha kubadda cagta oo dib u dhiskiisa la samayn doono. Sidoo kale waxa Ra'iisul Wasaaruhu soo booqday xerooyinka ciidamada oo maaragtay halkaas oo saraakiisha uu warbixin uga dhageystay isla markaana salaan uu ka qaatay. Inta uu joogay Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu kulamo kala duwan la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoo kala hadli doona arrimaha dib u heshiisiinta, sidoo kale arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada Soomaaliya ay ugu dhici lahayd si nabdoon. Arrimahaas ayaa ugu weyn arrimaha socdaalka Ra'iisul Wasaaraha. Haddii ay baydmana inta uu joogo Ra'iisul Wasaaraha oo aan caawa halkan joogi doona, waxa uu kulamadaasi uu sii wadi doonaa oo la yeelan doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada oo runtii ay ka mid yihiin haweenka, dhalinyarada iyo sidoo kale cuqaasha Soomaaliyeed oo dhan ee halkan jooga.